Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum. Kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan. Halkaan naga daawanaysaan waa barteena YouTube-ka ee Xogta Tube. Waxaan halkaan idinkugu baahinaa macluumaadka iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee baraha bulshada ka taaganaa saacadihii la soo dhaafay. Intaan muuqaalkeena guda gelin fadlan waxaan ka codsanayaa inaad subscribe saarto kanaalkeena isla markaana aad furato gambaleelka si muuqaal kasta oo aan halkan soo dhigno aad u hesho. Sidoo kale like saar muuqaalka si meel fog uu u gaaro. Aragtidaadana qaybta hoose ee commentiga noogu reeb. Waan kaaga mahadcelinayaa. Aynu guda galno muuqaalkeena. Saacadii la soo dhaafay waxaa baraha bulshada aad u qabsatay qoraal uu soo dhigay fanaanka Iidle Cabdullaahi Nuune Iidle Yare oo ku xanuunsanaya magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Qoraalkaasi oo dad badan markaasi xanuunjiyay isla markaana ay ka naxeen taageerayaashiisa iyo sidoo kale dadka kale ee markaasi yaqaana fanaanka. Saacadii ugu dambeeyay qoraalka uu bartiisa Facebook ku soo qoray fanaanka Iidle Yare wuxuu ahaa Allah ayaan idinkaga tagay ilmahayga. Qoraalkan ayaa dad badan xanuunjiyay isla markaana aad uga naxay wax uu fanaanka ula jeedo. Qaar baa waxay sheegeen in fanaan Iidle Yare uu daran yahay ama xanuun daran uu hayo, halka qaarka kalena ay sheegayaan in xaaladiisa caafimaad markaasi ay yara fiican tahay. Fanaankan ayaa waayihii dambe ku xanuunsanayay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, sida qaar ka mid ah eheladiisana ay sheegeen waxaa haya xanuunka sokorta ama macaanka oo uu la xanuunsanayo ama la daalaa dhacayo. Sidoo kale qaar ka mid ah asxaabtiisa oo Nairobi kula sugan waxay ii sheegeen in fanaanka ay buro kaga taalo madaxa isla markaana xanuun kale ay ku hayso. Laba cudur oo xanuun badan ayaa isku biirsaday fanaanka Iidle Yare. Ilaahay caafimaad taam ah ha siiyo. Saacadii ugu dambeeyay qoraalkiisa ayaa dad badan ka nixiyay isla markaana ka calool xumaaday. Qoraalkaasi waxa uu markaasi dadku ay aragtiyadooda ka dhiibanayeen ama ay u muujinayeen inay ka xun yihiin xanuunka haya fanaanka iyagoo u soo duceynayay. Wuxuu sawir kula jiray 3 caruur ah oo uu dhalay. Midig gabar weeye, labada kalena waa 2 wiil oo markaasi isaga uu dhalay. Fanaanka Iidle ilmahan isaga ayaa korsanaya caruurtiisa isaga oo markaasi ahaa fanaan Soomaaliyeed oo dadku ay aad u jecel yihiin isla markaana jecel kaftankiisa iyo sidoo kale hadalkiisa. Maalmihii la soo dhaafay ayuu ku xanuunsanayay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Qoraal goordhow uu soo qoray mid ka mid ah saaxiibadiisa oo aad ugu dhow ayaa wuxuu sheegay in fanaanka uu markaasi gurigiisa uu ka maqan yahay. Qoraal uu soo qoray ama uu bartiisa Facebook ku daabacay sidan ayuu u qornaa: dad badan ayaa ila soo xiriiray oo i weydiiyay xaaladda saaxiibkayga fanaan Iidle Yare. Waxaan ka imid gurigiisa, ma uusan joogin. Caruurta oo aan la kulmay waxay ii sheegeen in uu aaday dhakhtar saakay, aysanna ka warhaynin meesha uu hadda ku sugan yahay. Telkiisa ama taleefankiisa waa dansan yahay. Hadda ayaan dhaqaaqay aniga iyo mid ka mid ah saaxiibadiisa si aan u helno warna uga keenno. Amuuraha Allah sahlo ayuu qoraalkiisa kusoo gabagabeeyay. Qoraalkan ayay sidoo kale dad badan ka naxeen mar kale oo saaxiibadiisa ay ku sheegeen in fanaanka la la'yahay isla markaana uusan guriga ku sugnayn. Iidle Yare waa fanaan Soomaaliyeed oo dadku ay aad u jecel yihiin isla markaana shactareeya oo kaftan badan dadkuna ay markaasi aad u taageeraan. Xanuun ayaa iminka haya. War sugan oo xaqiiqo ah lagama hayo in xanuunkiisa uu daran yahay ama uu wax yar yahay, laakiin qoraalkan marka uu soo qoray oo uu ilmihiisa sawirka kula jira uuna kula dardaarmay dadka ama uu qoraalkiisaba ku yiri waxaan idinkaga tagay Allah ayaan idinkaga tagay. Dad badan ayaa ka naxay oo fanaanka ku tilmaamay in xaalad halis ah uu ku jiro. Wixii xogo iyo macluumaad ah ku soo kordha fanaanka Iidle Cabdullaahi Nuune Iidle Yare halkan ayaad kala socon doontaan. Waxaan idinkaga codsanayaa inaad u soo duceysaan
walaalkeena Iidla Yare oo ku xanuunsanaya magaalada Nairobi ee dalka Kenya. ducadaada wax badan ayay noo tari doontaa ama ay walaalkeena u tari doontaa. Fadlan qaybta hoose ee commentiga inoogu soo duceeya walaalkeena fanaan Iidla Yare.